Manchester City ayaa ugu dhawaatay soo afjirto guuldarooyinkii soo gaaray shantii kulan ugu dambeeyay tartamadoo dhan kadib markay 3 gool ku hogaamiyeen Feyenoord bartamihii toddobaadkan. Balse qaab musiibo aan caadi ahayn ayaa looga daba keenay 3 gool ee hoggaan ku hayeen 15 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta. Waxay ahayd markii ugu horeysay muddo ka badan 35 sano City ku guuldareysteen balse kulan hoggaanka ku qabteen 3 gool. Mana jirin waqti ka wanaagsan oo lagu wajihi karo City midka hadda ay ku jiraan. Liverpool durba 8 dhibcood ay ka sareysaa kooxda historialka ayaana faraha ku haystay kalsoonida ugu badan kulankii la ciyaarayaan City. Waxay noqon doontaa nacasnimo in la dhayalsado City xitaa haddii aysan badin 6 kulan. Qofna kuma qiimeyn karo muddo hal bil ah oo aysan guuleysan, ayuu yiri Arne Slot oo bara Liverpool. Waxaa jira sabab macquul ah oo lagu saadaalin karo kulanka hadda ka noqon doona kulankii ugu horeeyay Slot oo la ciyaaray Guardiola. Waxaan eegaynaa 5 arrimood oo muhiim ah oo go'aamin kara natiijada ciyaarta weyn ee isbuucan Premier League. Qadka dhexe Liverpool iyo City. Rodri la'aantiis dhaxda City aad ay u fududahay la maamulo. Maqnaanshaha xiddig ku guuleystay Ballon d'Or waxay qayb weyn ka qaadatay dhibaatada kooxda. Marka labaad, garabka difaaca bidaha Liverpool hadda kama muuqato daciifnimo aad u badan dhanka difaaca, waxaana kaliya laga dhaliyay 8 gool 12 kulan oo horyaalka xilli ciyaareedkan. Waxa laga badiyay hal mar kaliya xilli ciyaareedka oo dhan waana 15 kulan ka hor. Ridis ayaa balstoon 7 ka mid ah 19 kulan hogaamiyay Arne Slot. Laakiin difaaca bidix Andy Robertson oo sameeyay 2 qalad oo hor loo dhigay kooxdiisa xilli ciyaareedkan oo meesha kaliya Ridis looga faa'iideysan karo kulanka City. 3 dhibaatada difaaca Man City aad ay ugu liidataa sida caadiga ah dhanka difaaca xilli ciyaareedkan, maana aan oo kaliya tirada goolasha laga dhaliyay. Tusaale ahaan, kaliya Ipswich Town 49, Southampton 44, Leicester 44, Crystal Palace 38 ayaa ka badan Premier League xilli ciyaareedka marka loo eego City oo 32 fursad lagu abuuray. Ciyaartoyda muhiimka ee maqan. Markii ugu dambeysay Ruben Dias oo ciyaar City horyaalka waxay ahayd markii ugu dambeysay ay badiyaan. Pep ayaa rajeynaya haddii difaaca dhexe Portugiiska uu taam yahay in aan imaan doono, laakiin ma badna inuu ku soo bilaabi karo. 5 faa'iidada guriga Liverpool iyo City waa kulan u janjeera markasta dhanka kooxda martida loo yahay inay badiso. Kooxda martida ayaa balse kaliya 6 ka mid ah 54 kulan oo kooxahan ay kulmeen. Taa waa meel kale oo faa'iido weyn ay ku heli karto kooxda martida loo yahay Liverpool. Adeehan maxaa ku saadaalin lahayd kulankan?